أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله خاتمة خير نو ختن الماء آدم تراب ري آدم تراب سود واده دمانتين ما أنت نفر باندقي الريركو هنجادو شكلي أحيد معي أحيد سود واده هدو هجاجي سود واده إن نروي وقد شلي أسوقرتي maxaad ka oran muwaadinow qandaraas qaatow bashiir soo dhawow bashiir waad ku mahadsan tahay xalay waxaan seexday anigoo dibirsan saaka faraska waxaan u heensaystay warqadda inaan ka jawaabo laakiin waxaad ii sheegtay inay warqad kale oo official soo qortay waad ku mahadsan tahay soo dhawow cabdirashiid cusmaan cumar معارض يا محافظ وحدوني هاو سودو ولا لا استعال بين النهاي ان واذكر ما شداي مدنه بشير ورقدي سو قرتي ان كستو ير دغي حدنا وما سي حناقي ساكا waxaan doonayay ani iyo Norway maxaa kala haysta markaan leeyahay ani iyo Norway waa muwaadinka Soomaaliga ama kan muwaadinka ahayn ee xoolihiisa la qaadan meeshan waxba ku jira Norway horta waa imisa milyan horta Norway meeqa qaxootiga inoo haysa horta Kenya qaxootiga Soomaali ay soo raraysto xagaynu dejinaa horta dani iyo dirawalkiisi Ahmed Tuke iyo safaaradaha ama wakiilada ama beesha caalamka luuqaday qori isku sibay u dhamayaan qaarkood marhumba mise waa cabsida iyo ciilkan qabo galiso soo dhibitaankii janan nimankii kumada kaba weyne tacsiye ku jiraan marhumba good news banka idinka haya may run ma aha waana run waa runna ma aha khaaduka noolaha ayaan ahay insha Allah waxaan doonayaa inaan afka iyo carabka iyo geesinimada inaan ugu hiiliyo kawnkan dhibana oo dhan caawi dhibanaha barnaamijka liyaamada wad quudi dhibanaha quudi bi'ada qabiil aakhiro waxa ma ka tara may hadaba waxa marka hore idin sheegi Soomaaliyay ama nimankii goonka cuni jiray ee ilka yarta ahayo kumada uu dabaaldegaya intii caaqilin tahay intii aqliga lahayd in baa jirta caaqilina laakiin hadana carama ah oo ka cabsan Axmed Madoobe waxaan garawaayay macnaha laandeeruhu leeyahay okay daarood waxay koranayaan anaga laandeera ben soo kii la beeniye ma okay kumade meesha dheer u kharibanahay waa silsiladan laandeerana okay daarood muula istaagine laandeeraan garan waayay dhibkayna haysta mareexaankan goonka cunaya ee laangaabka ah annagoo ah reer kumade kaba weyne soo noogu tarin cabsi laga qabo siyaad bare yaana laayay war ma cid kale idin deysaa jirta siyaad bare waxbuu idin taray dad buu idin ka dhigay bili aadan buu idin ka dhigay sharaf buu idin yeelay okay bal intuu siyaad bare dilay iyo inta iska disheen iyo doorintu iska dilay bal isku tiriya sharaf darada bal hawiyo inta iska disheen iyo siyaad bare intuu idinka dilay bal isku tiriya war ma jeerteeno inta iska disheen war absamo inta iska disheen ma dhanno waxa Soomaaliya daartii nabi maxamed alayhi salatu wasalaam loogu shiray ee daarun nadwa shaydaankii shirka qabtay wuxuu ka soo duulay Soomaaliya xeebta Soomaaliya oo waliba xaafuun buu ka soo duulay Puntland hadaad fiiriso dhacdooyinka kabla lahow waxa la ii sheegayaa ninkii dani safaaradaha uu la kulmay iyo meel kasta uu la kulmay mar maxaa rabtaa ninkii mareexaan ee adeerkii aha ya ciidamo nagu laaya Soomaaliya intaas u dhaaf waal Ahmed Madoobe isaga maxaa la yiri layba sheegi waxa la yiri abti watergate way baxday to kala baxday nimankii hawiye ee kaftanka aan aqoono
waxaan idin hayaa guul waxaa la ii soo diray niman dhalinyaro ah oo ku kaftamaya liidarka daarood wuxuu ku dhintaa baabusiir iyo musqul siyaad barre wuxuu ku dhintay musqul sayid cabdulla xasan waxaa dilay baabusiir halgamaha iyo hoggaanka hawiye xabad baa disha niman iskugu faanayaa la ii soo diray mar waan qoslay marna waan ooyey hawiye kaftanku uu ka xidhan yahay halkaa anoo maraya ayaa haddana wax kala ii soo baxay okay kuraygii hawiye ee jeclaa inay kaftamaan war baan idiin hayaa dhibka soomaali oo dhan waxa keenay daarood waxa keenay kablalax waxa keenay doqon kuumade doqon harti qaar baa masaakiina way socon baashu socon labadaa nin ee maanta ina ceebeeyey ee afrika ceebeeyey ee soomaali ceebeeyey markay ka soo baxeen daarood soomaali wuxuu taagan yahay cismaan maxamuud waa boqortooyadii wuxuu taagan yahay reer warfaa waxaan idiin sheegayaa reerkii reer warfaa ahaa hal nin baa ka haya oo la dhoodaanow rasaasa la dhac hal nin reer warfaa oo dhan hal nin baa ka haya warin maadeerayaal yaa la madaya yaa laba noqonaya okay haddaba waxaan soomaaliya idiin sheegi kuumadihii kale wuu dabaaldegayaa okay reer cabdillahan qaar baa gumaysi ku jira reer cabdillihii yaraa oo dhan iyo dhexdhexaadka wuu dabaaldegayaa okay laakiin reerkii reer warfaa ahaa hal nin baan ka hayaa war yaa labaynaya haddaba ku bishaarayso ilka yaray soomaaliyow adeer absamuud doqon maaha dhib baa haysta habaar ma daarood baa habaaray ma kuumadaa habaaray ma madaxabaa habaaray ma waxaa loogu habaaray nin ragan ha kaa dhasho badankaagu nacas ahaw ha dhergin waxaa taasaa loogu habaaray waxay ii soo direen dhoodaanow adaan cabsanayn adaan wakiil naga ah soomaalida u sheeg inaanaan nalagu kicinayn ilka yartii baa soo duuli marraxaan baa soo duuli waxaa laga qaadayaa kismaayo oo de kismaayo maadaa leh keliga horta marka hore kuumadow kismaayo soomaali oo dhan baa leh jigjiga lafteeda soomaali oo dhan baa leh laakiin jigjiga iyo kismaayo waa kala gaar beeraha ku wareegsan jigjiga haddaad tidhaaho kuumada iskale okay nin iibsaday mooyaane waa kuu garaabay inta badan 80%. laakiin kismaayo ninba goof yar iyo degmo yar buu ku leeyahay cid aan ku lahayn way yar tahay soomaali ama ma jirta ku leh horta ku bishaarayso kismaayo waa la wada leeyahay adu malihid waxaad ku bishaaraysataa oo kale haddaabad madaxweyne ka noqoto kismaayo waadna ceebayn kenyaad nagu dari madaxweyne kumada ma rabno war ma ka daynaa inbaa masaakiin oo dulmane war madaxweyne maxamed suweer ma rabno war ma ka daynaa inbaa dulmane madaxweyne reer warfaa ma rabno halkaasa xaq ma rabno mareexaan iyo absame kama dhaxaysa cadaawo qoyska aan waxba ka dhaxaynin ee wanaag keliya ka dhaxeeyo waa mareexaan iyo kuumade doqonkow yaan laguu sheegin been halkaa waa ku dheeraaday okay waa ku dheeraaday waxaan idiin sheegayaa inay dabaaldegayaan nimankii kuumade adeero qabiil ma rabno qaran baan rabnaa soo dhawaada khiyaaray qabiil ma rabno qaran baan rabnaa okay intaanan badda gelin iyo norway axmed madoobe axmed tuke axmed ruwaa gabalkiisii baa dhacay garbihiisii waa la rifay ilaahuma haddaa okay hadday tolnimo wax tari imisaan kuu soo diray war oday soomaaliyeed inta codkaaga la jecel yahay inta hadalkaaga la jecel yahay adeero dhabahan qaad madaxweyne inkasta oo dee dhaqan soomaaliya aanaan daynayn ama madaxweyne noqon ama mid baad keenaysaa reer warfaahe in adeero dhabahan qaad imisaan ku yidhi ninka la yidhaaho dani waxaa wata beesha caalamka ayaa qayb ka midihii wadataa okay dani nimankan dhabayacada ah nimankan bariga ah baashan siyaasadu way ka hadlowday maanta laakiin hungurina hadleeyey dani iyo beesha caalamka qayb ka mida waxbaa ka dhaxeeya norway iyo dani waxbaa ka dhaxeeya
أحمد توكي يسوي طبعا دان راعد أحمد توكي حقوق حكومة دني وحلا دورتي قبل الله معن كنا جبل بنت الله دان يصير حلالة هنقول حرامي لو قرصوما لكن يا دورتي ميو قارية حقيقة مايا حقيقة أوريدي من عسيري ما أنتي وكهالي بورتي حافون أيام دني أنا عسيري واستاكيي سياسي انتو كي يقانو تاك استاكيي وابتر صدي ما انت اصلا انا دني فاصحي انتي هوري وانا اقولها ما انت كده بيسي نكاني ما يستاهلو انو هل قبله ما ليها مثل هل تولو انو مامولو اوكي نيكاس يسوق حرام لو دورتي احمد مدوبو ماشي الشرف كودو وركومدو جيركا هدو خمادو سغا هدو خمادو ميو كا هريا تلا ان بدن بان سي احمد مدوبه ورمانتا ayuu talo u baahan yahay odayaasha kuumada ee xamar jooga odayaasha kuumada ee gaarasho jooga ee lugooyi odayaasha kuumada ee jijiye jooga waru gurmada hadaad ka naxaysaan booskii ugu fiicnaa taladii ugu fiicnayd oo maanta guul ku soo hoy ama dambi loo raacay ama aan la jiidayn sidii maxaan ku rahaa madaxweynihii Liibiya ama maxaan ku rahaa Qadaafi okay وبوسك ما أنت وكجيو هايس إيوه جنان كهر جنان محو قرطي جنان وحو يري أبارها إيا نبكة إيا وحن شعب وانكو فرحي أوكي أحمد مدابو ماشا كوكودو نيكي كو فرحيا إن ميت كيسا لجيدو يساقوا فالحن لجيدو أوكي نيكي كان حيو إذيكو سواتو أضيالو علماء ودمرة أطاق أحمد مدابو جابيا وحالي نوالا ولالكيبا وطليا أحمد مذوبي عقلي وكسوري قرشدي لانديره نمبع الكسورة أحمد مذوبي وحو قول دريستي وحو لا تلاك قاتا أفرير عبد الله ما إله ورا ظلمي أفرير ورفا إن مدحوينها براكيسا بقلك براكيسا فرماجو وحو قاتا صومالي أوردن درية دي أي كمتاي الله جعليا تريدو كل جتا أيوك قاتا قول أوكي أيوك فرديا حداد كتيرزتو قبيل كاغا إنك فورا تليان أو كوا كلا أسكحيدو هل كذا هو ضمبين أحمد مذوبو أحمد دروايو فول حمد هذا وان كنحي ديل كاغا وان كنحي ما قانا وحن ونحيو إنا كفر هاي إنا أذيرو هاي نمرحان كالله نقاب كاكريني يا إنا أذيرو اسليب هنكون دقالمي اسليب ديل كاغا يانا جعلاني اسليب ويدي بس ديل كاغا اسليب يا طوبني لأنه ما هيسي وحبا ما هيسي أحمد توكو وحنكو شيء خادوك نولها أيانا إن شاء الله ما عاس على صعود إن شاء الله هيك حاسدي هكرهين مركز لذا خادوك نولها إن شاء الله هكرهين حتى راعيسو وكود دعين صمد الدعاء أيان سمي إلى الأبد تاسا كود دعين مركز صاد سوق خادوك نولها إن شاء الله أوكي نادر حتى القرآن جدي ودودي أون كمجانك ودودي أون جيري ودودي أون عربي ودودي أدنى وكود دودي دوقنكو حقوق بيقوليه دوقنكو على الوينه حقوق بيقوليه لانقاب دوقن على الوين أو مدرجة حقوق بيقوليه إلى هذا ماشى حقوق في عن ما أنت تكون بدادي عندك هذا شرف نوع شرف نوع لو دفاعي أو ده قبيلة دايما كمذا كم وين يقوليه هاي مدعوينها داي وهذا يسليبه أو جنا كجوه الرئية مدحتو يده ورفرماجو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين دعاء كوكل مدحتو يده قل أوكي هدات ها قل ويدو دقنيمو كأود بطو سفارة أمريكا يسكدي أوكي أما كل دني دان نجح نورو يسكدي أما عرب والعرب تيسكدي من وقت سوق قبل ناي سفارة أمريكا كريه كبوينه إلا أمريكا كبوينه وعطرها كومادا كبوينه واسديبي halka isku dib labada arimood ayaan ku siinaya Jubbaland meelaad ku noqoto ma jirto waxaan ku sheegi say u dhan yihiin kuumada kaba weyne xitaa reer Cabdullaahi reer warfaaw sanad keenayaan walow aan hal nin ka hayo oo ku dabaaldegaya haday ku qabtaan reer kuumada haday ku qabtaan ninka mareexan haduu ku qabto
boqolkii ba sideeta uu ku badbaadin ka sheekhaal uu ku badbaadin kama jeerta uu ku badbaadin ninkan ku badbaadinayn waa ninka kuumade okay afartii absame iyo adeerkood kuma badbaadinayaan doqolka reer warfaana waaba markuu arko inay ka ku dhamaatay waa ka kugu iibin ee naga iibsan ee nooka keenaya xageed isku halay okay igaal shidaado colortiiba jabayay ducadii aan ku duceeyay inay hooyadii ma xusata ma dhageysatay okay nimankii ninkii loo jiray cabdi maxamed umar guriga laba saddex hooyo lahaa labadii saxaas hooyooyinkood waa ayeeyay hooyadii waa in adeertay okay sirdoonka iyo khadaamadaha iyo kuwa u shaqeeyo dhan qaraabaan ahayn okay sirdoonka inay ninkii u horeeyay ee la marti qaaday ee la yiri sargaal noqo oo aan lafta kaale ka asal anigu ahaa adeer ogaadeen dile ma ihi ogaadeen daweeyaan ahay waxaa la isku taxaluujinaya hal sano oo kaamila in aan basaas u noqdo oo lafta iyo itixaadka iyo qurbaha intaan wareego aan basaaso adeer basaas ma yaaniga way la yaabeen sirdoonka inay hooyadii edadii habaryartii dumaashidii xaasaskiisa markaan jijiga tagay waa la igu faanay intaana iman jijiga waxaa la yidhi waxaanu ku tusaynaa sheekh iyo shariif kula jooga Australia iyagoo na baryaya oo inay noo shaqeeyaan yaan ku tusaynaa jijiga markaan tagay waxaa la tusayaa inta culimo gari weyn alla maxaan sirhayaa inta culimo gari weyn oo ogaadeena oo Australia joogta oo baruur cunaysa hotel degan yaa la leeyahay kuwani waa culimo ilaahay diin baray sharaf leh oo ka saasay rabaan saasay doonayaan hooyadii ba waxay u tiri waryahay intaasoo culimo intaasoo aqoonyahan oo wiilkayga u ducay maxaa ku daba dhigay wax sheego markaas waxaan ku yiri anigu waa maalintaan saxay inaan ahay khaaduunka noolaha waa maalinta aan saxay inaanan hungurid inuu kan imaamulin waa maalintaan saxay inaan ahay nin raga nin isfaanay waa riis dugtay waxba kama jiro adeerow waxaan dinaynaa xaqiiqo waa maalintaan soo xidhay kafanka aan diyaar baan u ahay inaan dhinto dulmidiid haddaad maqasho ninkii u horeeyay ee kafan soo xidhay ayaan ahay inay ninka ugu dhow ayaan ahay abtibuu ahaa abtibaan u ahaa labada guri saddex guri laga xukumo guriga hooyadii baan ku degay waxaan diiday inaan maal siisto mabda'ayga diintayda ninka inay ku amaana walaw de meelo uu ku yar amaana yahay ninka inay ku amaana waa bila diin kuwa garku inta leeg yahay oo culimo ah oo absamo ah raaciye oo ogaadeena hasi socdo ree Cabdillah oo baruur iyo kursi iyo hotel oo fadhiya ya kursi ya hotelkii tagi iyagoo life ah lay tusaya ka waran doodaan oo laygu faanaya kani waa sheekh hebel kani waa sheekh hebel kani waa sheekh hebel sidan buu rabaa sidan buu doonaya okay qandaraas jijiga boos ka raba beeradha buu rabaa warta adeer ree Cabdillah dhan ma qaadi jijiga ilaa nimanku waa 8 milyan ka lagu sheegay waa ree Cabdillah haddaan ku idhaaha nin kasta oo sheekha oo wadaaga wuxuu abalay gareeyay in dhowr hektar la siiyo aga oo nimankii jidwaaqa hawaaba la moorduugi Falastiin baa laga dhigayaa war sidan xaq ma aha war kada okay baalka la yiraahdo baalka barnaamijka la yiraahdo dib u curashada ninkii u horeeyay ee walay ogolow kolkaasaan ku warnin bank u soo koray oo mula arag oo bakayla arag haddaan libax u geyso oo laf ka hor buu dhimanaya arinta ku dheeraaday yaa maanta beeninaya barnaamijka na dhaxmaray 2011 kii anigi iyo reer ogaadeen way dulmayn qaar aniga iyo reer Cabdillah ilan halaayo reer Cabdillah laakiin baruurta iyo kurska iyo qandaraaska iyo lacagta haddana reer warfaa ku socotay reer Cabdillah ku socotay yaa beenin kara bal waxaan aragtay nin Yurub laga keenay oo hotel degan oo khas laga bixin oo taxi laga bixin oo baawurka laga bixin oo markaa u tago anu ishaxaadi anu haddana ishaxaadi oo iska bixi qarashkii oo guri degan oo maxaan ku rahaa istabaray buu ishaxaadi marka maxay tari mar hadiiba waxay maxay tari lacagi haduuba inay lacag
tubadii u furay haddana weli ninkii reer cabdilla anu ishaxaadayo waa waxaan ku raaxaystanay yaa dafiri wixina dhaxmaray okay malla salaamu maalintu baktiyay raggii aan soo raacay ee wafdiga hogaaminaya ilaahay la kulmiyay waa maalintii ugu horeysay xoolo dawlo aan dhamiyay jigjiga ayaa la yidhoodano waxay u socdaan tolka malla salaamu xabaashiisi kala raac ninka yiri waa nin warsangiri ah oo ah engineer oo ah pilot oo ninkii diyaaradda beriga lagu afduubay yaa raba inaan raaco iyo mid kale dhayaca waa naxintii ugu badnay okay waxaa soo wacay abtigay oo naan aqoon isku lahayn oo isaguna meesha raacay waxaan la kulmay anna markaa fiisada ka dhamaatay arsama waxaan arkay absama iska ilaahay absama oo dhano oo sheekh culimadii qaar u badan yihiin oo malla sanaawi xabaashiisii soo siyaaran waxaan idhi warhaane meeshan ceebtii watergate baa ka socotee ma raacda iyo ha raacin waan raacay waan sii sheekaysanay okay baabuurka jigjiga ilaa arsaba malla sanaawi inuu baktiyey baan ka sheekaynay intaasoo jeer baa la damcay abtigay baa la socday ruma iyo nin majeerteena iyo nin warsangeri ah in baabuurka laga tuuro habaarka aan habaarayo malla sanaawi qaar waxay leeyihiin ninkani waa basaas haddaba war soomaaliyay nimankii qur-aanka idin barayay absamee kuumade haddana malla sanaawi bay qaarka u saaraayeen inay yidhaahaan allahu naxariisto allah maxaa doqon nagu jira okay diinta waxaan u baranaa badankana qandaraas mawduuca waan ku dheeraday raalli ahaada raggiiow ninkii hogaaminayey madaxweynihii guddoomiyihii jabhadda soomaali galbeed ibraahim dheere walaalkiibuu ahaa halkan u degan yahay Sydney agtayda carar ha beeniyo hebel war sheekh kasta oo ogaadeen joogo Australia markaad baruurka iyo hotelka iyo baabuurta iyo qandaraaska guri kasta iyo meesha doontay iyo dalabkaad qoratay waa la hor keenay war raggani waxbay dalbadeen waxbay doonayaan adigu meesha nimca lagu jiraa ninkii adabtiga u ahayd nabi ilaahay soo diray weeyaan waxaan mabda'an jooji fircoonka waxaan ku soo sawiray isagoo daqsi aan ku sawiray isagii fircoon baa soo sawiray jigjigaana jooga waxaan u sheegay hooyadii habaryartii eedadii xalaal meesha ugu fiican ee ku dhiman lahaa waa halka waryaadeen ree cabdulow ree warfaayo wiilkan abtigow ahaabaa saag isagoo wax kasta ii ballan qaaday aan idhi war adiga oo xitaa haddii qabiil la yidhaaha kuumadihii sii dulmay meesha kula deganaa cabdi kuumade maxaad ka siisay xukunka baalcad maxaad ka siisay weyteen maxaad ka siisay absame maxaan ku dhahaa jidwaaq maxaad ka siisay rooble maxaad ka siisay adiga oo intii xorta ahayd iibinaya miyaan ku yeelaa no way axmed madoobe hadduu isdhiibi waayo nin kastoo kuumade oo axmed madoobe u haya xal u haya ama reason u haya taladaa aan siiye tala ka fiican halka soo fadhiisto isoo wac inkastoona jeclayn aniga isoo wicitaanka ama isoo wac ila ballan sidii fircoon iyo nabi muuse calayhi salaam ay u ballameen inoo ballami kuumada kama weynow haynu kala baxano axmed madoobe waa dulliga soomaali waa mugdiga soomaali waa sharafdarra soomaali haddii uunan xal aad u hayso raganimo aad u hayso isoo ha fadhiiso lifekaygan ka soo jawaab ha lagu arko ii sheeg waxaan arkayn ii sheeg hadduu jiro axmed madoobe dowladda waa in ay hadduu talada qaadan waayo inay jeebayso farmaajo haddaadan jeebaynayn waan kuu sheegay haddaad ka cabsanayso 8 milyan ha ka cabsanin jeebe ha dilin sanab baan ka dhigaynaa meesha waa ku dheeraaday markaa soo gelaya insha allah norway iyo axmed iyo danidaan dhagax luuqadiisa waxbaa ka dhexeeya warqaday norway soo qortay waa ku day hadday maqli weydo hadday garan weydo ta kale u geeyo norway inkastoo wasiirka arkay oo yar hanjabaya wasiirka warfaafinta safaaradda norway waa in laga saaraa muqdisho qaxootigana ha la soo celiyo ha ku quus qaataan dibiga norway warqaday soo qortay apologize is not enough
sharcigu waa culusya Norway waa dal yaro ma dhanno reer kumada ka badan Norway reer warfaa ka badan maxaan ku falaynaa qoxootigana soo rara safaaradooda waa in calaaqaadka loo jaraa okay Norway haddii calaaqaadka loo jaro xeebta Soomaali wax badan baa badbaadaya wax badan oo qarsoon baa soo baxaya safaaradaha waaweyn say ku qusqataan Norway calaaqaadka waa in loo jaraa kow Kenya qaxootiga ay ku hanjabtay saarayso okay UN baan la talinayaa qaybta u xil saaran Norway halkaas ka baxay war dhamaystira YouTube leeyay halka mar qaxootiga Kenya ku hanjabtay Soomaali galbeed haddii waxaan oran lahaa la soo celiyo hal la keeno xamar hadday taasi adag tahay oo sharci waa in noqonay muwaadin iyo qaxooti isqaabileyn adeer Soomaali galbeed ay u jirta xuduudka Soomaali galbeed saa u dhaqaaq wax yar oo saa u dhaqaaqa Soomaali galbeed xuduudkeeda hal la geeyo Ethiopia ila sharciga saas oo golayso ma Soomaali galbeed oo xuduudka u dhow hal la geeyo UN ay ka cabsanin kharash badan okay NFD maxaddiidaya NFD هل يجي صوماليات هل يجي جيسي صوماليات يا NFD هل جيو KI اللي NFD أنا أسكله هل جيو أوكي مدحويني هندي قبلني معايا تنزانيا والله صومالي بالله صومالي كسك هو برنجي الله محاله بالقيسي وقت يجي جرول عباي بيقعدنا صوب بعد هويده مدحوينها هندي gabadha Soomaaliga ah maanta ka madaxweynaha waa Soomaali inkasta yar diiday laakiin way diiday maxay tiri anigu waxaan ahay reer Tanzania Soomaali laakiin hooyada Soomaaliya oo reer Jigjiga oo jid waaqa way abtirsatay okay Afrika oo dhan waxay noqon Soomaali alla maxaa la bilqaysay halka hal la geeyo okay Kenya halkaas ka baxay waxaan leeyahay reer Puntland oo siyaasad bay yaqaanaan nimankii ma jeerteen oo iga hadhay haduba ilaa hadda dani aan laga takhalusin xukunkiisii Puntland ma jeerteen baa siyaasad yaqaana halkaas iga hadhay waa sanadkii ay ma jeerteen siyaasad ay 3,001 doolareen war odayaal dhaqankow culimadow Puntland ay madaxweyne degdega samaysta oo ku meel gaar ah ama kii ku xigay ka dhiga waxba ka dhaxeeya dani inuu fadhiyo beesha caalamka luuqadu ku hadli iyo safaaradaha iyo beesha caalamka waxba ka dhaxeeya qolo kasto lagu tuumo inuu ka dhacayna calaaqaadka ha loo jaro wabillahi tawfiiq salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh